Speak English in 25 minutes. Ku hadal luqadda Englishka muddo 25 daqiiqo gudaheeda. Hello everyone, my name is Tutor Anwar. Waxaan macallin dhiga luqadda Englishka dhigayna 7 sano ee ugu dambeysay. Inshallah muuqaalkan yaray kooban ama gaaban waxaan isku dayi doonaa inaan adiga ka hadashiyo oo luqadda Englishka ku hadasho muddo 25 daqiiqo gudahooda. So shuruud baynu isu dhigan doonaa. Shardiga koowaad arday waxa weeyaan ama daawade waxa weeyaan in aad muuqaalkan dhammaysato 25 minutes aad bow yartay comparing to waqtigan uu lumino hadday daawasho tahay hadday wax waqti lumisa tahay hadday scrolling tahay so muuqaalkan mid ku anfici doona 25 minutes ka dhammayso waa kow shayga labaad ee rabo inaan kuu sheega waxa weeyaan haddii aad doonayso courses taya leh u dhigma muuqaalka daawan doonto inshallah imika kana taya sareeya biidnillah isdiiwaan geli courseska aan ugu talagalnay barashada luqadda English waa shardiga labaad shardiga saddexaad waxa weeyaan subscribe to my YouTube channel waayo videos fara badan oo caynkan oo kala ayaa soo socda so bismillah nabda wa ala allah natawakkal anu bilowno subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi luqad kasta ardayo oo adduunka saaran waxay leedahay xalqad yar if qofku xalqadaasi sax u fahmo luqadda u fahmo macluumaadku badana ardayda lama wadaagaan hadday la wadaagaan suu ardaygu ku dawaqayo ayuu la wadaagaan ma garanay ma systemka waxbarashada caynkaasa ma macalinka laftigiisa saa u fahmay bas si ardayga ku adag ayay maxay ahayd toolay u fahansiiyaan anoo xalqadda maanta kula wadaagi doonaa 25 daqiiqo markay noo dhamaadaan biidnillah adigoo hadlaya ayaan ku tusi doonaa maha fluent native ahaan u hadli maysid but you gonna speak kelmadaad fahmi doontaa jumladaad dhisi doontaa luqaddii in 25 daqiiqo wax bilo kugu qaadan lahaa aad ku baratay ayaad dareemi doontaa ugu horreyn waxaan rabaa ardayda fahanto wax la yidhaahdo personal pronouns maxaan ku idhi personal pronouns kelmadda laftigeeda inaad qaybta maaha waxaan isleegi doonaa macnaheega personal pronouns ardayo waa magac u yaali tusaale aan ku siiyo iminka adigaagana daawanaya magacaaga waxaa dhaha mustafa zubayr zamzam xaliimo khaalid magac baad leeday sooma khaalida waxaanu ku hadlaynaa tusaale ahaan saaxiibkaa khaalid iska waran wanaagsantii alxamdulillah no ninkii mustafa iga war mustafa iga war magaca mustafa hal mar baynu isticmaalaynaa marka dambe maxaan isticmaalanaa isagu waa arday wanaagsan isagu imka jaamacaduu galay isagu kubadduu jecel yahay isagu halkaasuu tagaa isagu waxaasuu qabtaa isagu shaqadaasuu hayaa isagu waxaasuu necab yahay magiciisii khaalid ahaa maxaa bedelay isaga u fiirsaada maxaa bedelay isaga tusaale kale caaishaynu ku hadlaynaa inaan caaisha dhahdo aynu ku hadlaynaa okay marka ugu horeysa magaca caaisha aynu isticmaalno kabacdi maxaanu isticmaalanaa iyadu waa ina wanaagsan iyadu waa fariid iyadu waxaasay jeceshahay iyadu halkaasay tagtaa iyadu waa sidaa iyo sidaa magaceegii caaisha ahaa maxaa bedelay iyadaa bedeshay iyada soo maha aniga inkuu idinla hadlayaa mar walba idinku oran maayo aniga oo ah macallin anwar aniga oo ah anwar simply maxaan isticmaalayaa aniga soo magacii khaalid maxaa bedelay isagaa bedelay magacii caaisha maxaa bedelay iyadaa bedeshay aniga magacaygii maxaa bedelo anwar ahaa anigaan isticmaalayaa oo anigaa bedeshay pronoun ardayow si fudud waa magacuyaan muxuu bedelaa magaca ayuu bedelaa fair enough very good man waanu ku fahnay waa qaacida aad u fudud pronouns waa magacuyaan waxaa la geliyaa ama uu bedelaa magaca easy busy lemon squeezy very good intaa markaanu isla fahanay waxaanu qaadan doonaa 7 magacuyaan 7 pronouns baynu qaadan doonaa okay pronounka koowaad ardayo waxa weeyaan I means aniga I means aniga 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 very good pronounka labaad waxa weeyaan he means isaga he macnaheedu waa maxay waa isaga very good
ka saddexaad waa she. She means iyada. She means iyada. Very good. Ka afraad ee inoogu xiga waxa weeyaan we. We means inaga. We macnaheedu waa maxay? Waa inaga. We waa maxay? Waa inaga. Very good. They ardayo means iyaga. So of course xaggan aan kusoo qoraya waxaan kaa doonaa inaad fahanto mid kasta Soomaaliya qayb muuqaalka intaan qalin iyo buug yarba qaado qor intaa ila fahan way wax kaa caawin doona to speak insha Allah ahead. waxaanu marinay they iyaga. Very good. waxay noogu xigi doontaa it means waxaa loo isticmaalaa wax kasta oo xayawaana ama manoolaa. qalin, buug, gaadhi, mobil, laptop, bad, dabayl, biyo. maxaa loo isticmaalayaa it. xayawaan oo dhan, bisad, libaax, baas, mas, shimbir, faras. maxaad u isticmaalaysaa it baad u isticmaalaysaa. Very good. si aan haddaba fahankaaga u soo dhoweeyo in kalaan kugu daraya ardayow ifaad ay aragto most of the time ifaad ay aragto ma rabo naxwe iyo grammar complex inaan kugu dawakhiyo kula sababtan saasa u dhacday kan saasaa loogu bedelay maxaan rabaa maqsadkayga inaad fahanto. ifaad ardayow ay aragto ifaad aragto most of the time baad raacinaysaa. I am. Okay? I am. anigu waxaan ahay. I maxaan ku soo macnaynay aniga. adaa iska hadlaya. I am. anigu waxaan ahay. intaa haddaad fahanto dhisitaankeeda waa jumlad dhisidii. If you understand that section luqadda Englishka tallaabo aad u weyn baad qaaday. aad u weyn run ahaantii. I am. anigu waxaan ahay. maxaad adigu tahay? I'm a doctor. I'm a teacher. Okay? I'm a fighter. I am a survivor. I'm a boy. I'm a girl. I'm a woman. I'm a man. I am tall. I am short. awood maxaad u leedahay adiga naftaada inaad ka hadasho by simply learning I am. Very good. He baynu qaadano ahayd isaga. isaga maxaa laga hadlayaa? lab baa laga hadlayaa. nin baa laga hadlayaa. isaga. He is. isagu waa. He is. isagu waa. He is a teacher. isagu waa macallin. He waa isaga. Is waa. He is. isagu waa. wax walbo at that time uu labyahaan sheegi kartaa. isagu waa macallin. isagu waa arday. isagu waa fariid. isagu waa xariif. isagu dheeriyey. isagu gaabanyi. isagu qurux badan yahay. isagu foolxun yahay. He is. isagu waa. He's handsome. He's good looking. He's tall. He's short. He's teacher. He's handsome. He is. isagu waa. He is keliya haddaad barato maxaa kaa dhiman eraygii ama jumladii. Very good. aynu ka socono. She. He maxay ahayd? lab bay ahayd. She waa maxay? waa dhadig. maxaynu ka hadlaynaa gabadh ama qof dumara ayaynu ka hadlaynaa. She iyadu is waa. She iyadu is waa. iyadu waa maxay? iyadu way qurux badan tahay. She's beautiful. iyadu waa free. iyadu way dheertay. iyadu way gaabantahay. iyadu cuntay karanaysaa. She's cooking. iyadu way ordaysaa. She's running. iyadu way seexanaysaa. She's sleeping. She is inaad baratay maxay awood ku siisay jumlad kasto iyadana tacalluqda in aad sheegto. She is caynka iyo caynka. waa dhadig baynu ka hadlaynaa. Very good. way she maxay noogu xigay? we maxaynu ku macnaynay innaga. We are students. We haddaad aragto halkaa line samee. waxaanu soo qaadanay I am. I maxay qaadanaysay am. He maxay qaadanaysay is.
she maxay qaadanaysay is. We markaanu marayno we waxay qaadan doontaa are. We are. Annagu waxaanu nahay kooxdada adaa ku jira kooxda dadka. Waa adiga, walaalka, walaasha, qof aad ula shaqaysaan, hooyada, familigiina, company aad ku jirto, kooxaad adigu ka mid tahay. We are a team. Annagu waxaanu nahay koox. We are a team. Annagu waxaanu nahay koox. We are friends. Annagu waxaanu nahay asxaab. We are. We maxay qaadanaysaa? Are. We are. Annagu waxaanu nahay asxaab. Very good. Wait. We are teachers. Annagu macallimiin baan nahay. We are friends. Annagu saaxiib baan nahay. We are a family. Annagu caylad baan nahay. We love each other. Waan isjecelnahay. We are couples. Annagu lamaanaan nahay. We waa annaga. Waa adiga iyo qof kale ama koox kale ood adigu laakiin ka mid tahay. So inaad we are baratay maxay kaa saamaxaysaa inaad tira annagu waxaanu nahay dal, annagu waxaanu nahay bulsho, annagu waxaanu nahay ciyaartooyo, annagu waxaanu nahay macallimiin, annagu waxaanu nahay xorriyadoon, annagu waxaanu jecelnahay. We love football. Annagu waxaanu neceb nahay. We hate. Annagu waxaanu doonaynaa. We want. Annagu waxaan raadinaynaa. We're looking for. We waa annaga. Very good. We waxaa noogu xigay they. They means iyaga. Waa kooxdada oo aanad adigu ka mid ahayn. Halkaa ila fahan. Waa kooxdada oonad adigu ka mid ahayn. They iyaga. They are teachers. Iyagu waa macallimiin. They are students. Iyagu waa arday. They are short. Iyagu way gaagaaban yihiin. They are tall. Iyagu way dhaadheer yihiin. They are iyagu. We're talking about a crew of people aanad adigu ka mid ahayn. Very good. Very, very good. Wait. They are my friends. Iyagu waa saaxiibaday. Nacmad fitaintii. They are my friends. Iyagu waa saaxiibaday. They are teachers. Iyagu waa macallimiin. They are a company. Iyagu waa shirkad. They are taanad barataa. Waxay kaa caawinaysaa sentences fara badan in aad samayn karto. Waa jumlada si loo dhisay ayaad fahantay. Very good. Wait. They are hagaa naga dhig. Waxaa noogu xigay you. You qof baad individualisa. Lab, dhidig, yar, weyn, gabadh, nin. You. Adiga. Yes, you. I'm talking to you. You are. Adigu waxaad tahay. You are tall. Adigu waad dheer tahay. You are short. Adigu waad gaaban tahay. You are handsome. Adigu waad qurux badan tahay. You are strong. Adigu waad awood weyn tahay. You are short. You are tall. You are average. You are a teacher. You are san kale. You are. Adigu waxaad tahay. You're old. You're young. Qofkaad la hadlaysaa lab iyo dhidig labadaba wuu noqon karaa. Very good. Toogu dambaysaynu qaadan doonaa waxa weeyaan it. It ardayow waxa lagaga hadlaa wax kasta oo manoola ah ama xayawaan ah ama aan garaad lahayn. Tusaale. It is a phone. Waa mobile. It is a laptop. Waa laptop. It is a gum. Waa hancho. It is a tie. It is a watch. You feel me? Iyo shay kaste oo xayawaan ah. It is a lion. It is a lion. It is a cat. It's a cow. It's a donkey. Khudradii, cuntooyinkii. It's a food. It's a pineapple. It's a watermelon. Okay, wax kastoo aan nool lahayn iyo wax kastoo xayawaan amaan garan lahayn. It is a beautiful lion. It's a whale. It is. It's a light. It's a microphone. It is. Okay. Hal maran soo dul marno. adaa iskaga hadlaya. Bay qaadanaysaa. I am Anwar. I am a teacher. I am sayasada. Anigu waxaan nahay. Anigu waxaan nacebahay. I hate. I love. I want. I like. I am. Anigu waxaan nahay. I am a good person. Qof wanaagsan. I'm a bad person. Waxaan qof xun. I am sick. Waan xanuunsanaya. Okay? Waxaa soo kale noogu xigtay he is. Isagu waa. He's handsome. Isagu qurux badan. He's tall. Isagu dheeri. He's a teacher. Isagu waa macallin. He wants to eat. Isagu wuxuu doonayaa inuu cuno.
he wants to play isagu wuxuu rabaa inuu ciyaaro he iyo is marna isbay raacana marna heedii oo keliyata aynu isticmaalana she bay noogu xigtay she is iyadu waa she's beautiful iyadoo qurux badan tahay she's kind iyadoo wanaagsan tahay she's an amazing person iyadoo qof aad u fiican she is okay she maxay noogu xigay we are a team anagu koox baan nahay we are a family inagu maxay nahay caa'ilad baynu nahay we are trying anagu waan isku daynaa we will do it waynu samayn doonaa we can't do it and we will do it regardless of what happened we waxay noogu xigay they are iyagu waa they are friends they are family they love each other they hate each other they waxay noogu xigay you adaan kula hadlayaa you are adigu waxaa tahay a good teacher macallin wanaagsan you are a bad teacher adigu waxaa tahay macallin xun you are rich adigu qani baa tahay you are broke you waxay noogu xigay it is it's a beautiful day it's raining outside it's good to see you it is so structure-ka imika this entire thing aan kuu sheegay waxa laga yaab hore soo dhigatay personal pronouns lagu dhigay waqti fara badan ay ka qaataan ay keligeed baratay ad he keligii baratay boqolaal jumladood gelisay waqti badan kaaga lumay anuu ku soo imika aanu tagno structure-kii ahaa waan kaa hadashiinaya maxaan ku yidhi waan kaa hadashiinaya jumlad baan ku siinayaa imika okay jumlad baan ku siinayaa sentence ama jumlad geli ayaan ku odhanaya aad bay fududaan doontaa beautiful waa maxay waa qurux badan imisa jumlad ama imisa structure ayaad ka samayn kartaa beautiful anu waan qurux badan odhan kartaa ifaanad era English aqoon muuqaalkan ka hor anigu maxaan soo sheegnay I ba haddaan tan maxay qaadanaysay most of the time kelmaddan ku siiyey maxay ahayd beautiful I am beautiful anigu waan qurux badan iyadu way qurux badan tahay leh markaan ka hadlayna gabadh waxaynu isticmaalayna perfect she haddaan aragta maxaad raacinaysay is kelmaddan ku siiyey maxay ahayd beautiful she is beautiful annagu waanu qurux badannahay markaad koox adigu aad ku jirto aad ka hadlaysa maxaa isticmaalaysay we haddaan aragta maxaad raacinaysay are kelmaddan ku siiyey maxay ahayd beautiful we are beautiful annagu waanu qurux badannahay at the same way baan kelmad ka adag ku siiyo la mid bay noqon doonta let's say waxaan ku siiyey delusion ma illusion I don't know why I love these two words illusion waa wahm ama khayaal weeyaan I am illusion anu khayaal baan ahay she is illusion iyadu waa khayaal we are in illusion so taataabashooyin yaryar of course weli way ku hadheen but tallaabadaad qaatay waxa weeyaan imika inaad jumlad dhisi karto adaa iska hadli kara anigu baa odhan kartaa dhakhtar baanay anigu waxaasaan jecelahay maxaad u baahan tahay kelmaddii dhakhtar oo doctor ahayd jacaylkii oo like waad u baahan tahay labada kelmad waa erayo laakiin iyagu maaha jumlad qaabkii loo dhisayay maxaad kalad awooddaa inaad tiraahdo niyow adigu macallin baa tahay adigu fariid baa tahay you are inaad tiraahdo iyadu way qurux badan tahay iyadu way fool xun tahay iyadu way dheer tahay she is kelmadduun baad u baahan tahay iyadu waa doqon she's idiot maxaad u baahan tahay kelmadda idiot waa jumlad maaha jumlad waa eray apology ibaad imika eraya haysato awood waxaad u jumlad iyo sentence inaad dhisto ma fahmaysaan very good way hal shay oo kale aan ku dari doonaa insha allah oo ah question intan imika aanu qaadanay it's almost 20 minutes waa nothing comparing to these courses waxaad ku qaadan doonto koorsada waxaad ku qaadan doonto intani 0.5 xataa kama 0.1 kama waxaan ku bari doonaa su'aal a question form wax la yidhaahdo okay isagu let's say uu dheer yahay isaga nin baynu ka hadlaynaa he haddaan aragta maxay qaadan jirtay is most of the time dhararku waa maxay tall he is tall isagu wuu dheer yahay very good waxaan rabaa inaan su'aal ka dhigo si yaroo fududaan uga dhigo isagu ma dheer yahay inaan dhahdo isagu ma dheer yahay iminka maxay ahayd isagu wuu dheer yahay he is tall soma su'aal baan rabaa inaan ka dhigo aan dhahdo isagu ma dheer yahay wax kala samayn maayo he is soma ahayn is he umbaan lahay istanu baan xagee geenayaa xagga hore is he tall isagu ma dheer yahay
isagu ma gaaban yahay? Is he short? isagu ma qurux badan yahay? Is he handsome? isagu ma wanaagsan yahay? Is he good? isagu macalin ba? Is he a teacher? maxaan sameeyey? istan baan xageegay xagga hore. Easy peasy lemon squeezy. English is easy. Come on. Wait. waxaan rabaa inaan idhaahdo iyadu ma qurux badan tahay? She's beautiful. iyadu qurux badan tahay weeyaan. She is beautiful. iyadu way qurux badan tahay. It's a positive form. su'aal baan rabaa inaan ka dhigo. Question form. Is she beautiful? Is tan xagga hore gay. wax kale ha bedelin. Is she beautiful? iyadu ma Caasha? Is she Aisha? Is she want to play? may doonaysaa inay ciyaarto? istan baad xagee geynaysaa? xagga hore. anigu yaan ahay dhaymiga. I am Anwar. soo maahayn? anigu yaan ahaan doonaya. anuma Anwar baan ahaan rabaa. Someone la qadar Allah hospital joogo su'aal weydiinaya. anigu yaan ahaan doonaya dhahdo. Am I? amtanun ba xagee tagtay? xagga hore. We are we. You are you. kelmadaha aadka ku fahansiin doona formada waxa weeyaan. Are you okay? intuu tel baad maqashay. ma fiican tahay? Are you good? ma wanaagsan tahay? marka hore maxay? You are good. adood wanaagsan tahay. laakiin maxaa laga dhigay? question form baa loo bedelay. oo waxay noqotay are you good? RT baa xagga hore gashay. Very good. ardayow waxaan rabaa luqadani waa miftaax. waa fure albaabo aad u fara badan kuu furi doona. shaqo, ganacsi, safar, horumar nafeed intaba. anu macalin baan khibrad uga dhigaysa luqadda Englishka 7 sano ugu dambeysay dhigayay. casharkeeda kooban iminka ku siiyey 0.1 kama aha courseska casharada ku jira. activities baad qaadan doontaa, calls baad heli doontaa, tasks baa kuu dheeri noqon doona. This is the right time aad go'aan ka qaadanaysa. waxaan hubaa iminka if ardayga 25 minutes kan ku ceshada hal mar wax ka badan xataa baan marku fahmin inay wax fara badan u dilaacayaan. waqti kaamaan lumin. bilow kumaad dhigan casharka iminka intan like waxa keliyadu baahan tahay at this moment waa vocabularies. Of course waxyaabo fara badan oo kala jira. question words baa jira. possessive articles possessive point lahaanshaha baa jira. prepositions baa jira. grammar baa jira. vocabularies ciidaa leeg baa kula socota course-ka. iminka sawiro qofka inta fahmay 300-400 oo kelmadoodna ay zaad u noqdaan. intan oo keliya time ka qaadanay. arday waxaan kaa doonayaa tallaabada inaad biidhnillah qaadato. decisionkaasi inuu kaa go'o. registrationka ama diiwaangelintu way socotaa. at this moment ay socotaa. contact us and take that decision. waxbarashaduna yay kaa noqonin xiise. inaad wax xiisaynaysaa aad yani just ay xiise kaa tahay shay wanaagsan marnaba ma. disciplinekayga yeelo. joogtee shayga. aniga iyo the entire team we are ready for you. tana waxay ku noqonaysaa experience. na waan doonayaa inaan barto luqadan Englishka laakiin waxaan rabaa inaan qof muctamada ka barto. qof aan ogahayna wax ka faa'iidayo in aan maxay haytoolay ka barto. So waxaan doonayaa I wanna test that person. I wanna see how qualified he is. Then baan qaadanaya go'aankaan iska hubiyo macalinka. This video sababta ugu muhiimsan usoo dhigan usoo upload garay inaad iska kii tijaabiso weeyaan. ma ahay qof aad wax ka faa'iidi karayso mise meey. intani yani waa 0.1 courseska insha Allah waxaad ku qaadan doonto iyo waxa courseska biidhnillah kugu sugaya. hadday pronunciation tahay aan kaa caawin doona qaab dhawaaqista. hadday asaasiyaadkii luqadda tahay. hadday grammarkii tahay. hadday speakingkii isticmaalkii tahay. hadday vocabularyigii tahay. hadday environmentkii iyo dadkii luqadda aad la dhiganaysay ay tahay. intaasoo dhan meel baan insha Allah isku keenay. and as well priceska ardayga lagu diiwaangelinaya are extremely cheap. fursada xataa ula socda. I'm proud of you baad xagga soo gaadhay. if uu ardaygu dadaalo waxaan ugu talagalnay inuu member ka noqdo institutionka insha Allah oo fursad shaqo xagga uu ka helo. mukaafaad in la siiyo ardayda levelska sare gaadha ama joogteeya luqaday waxay tahay ka go'an tahay iga laftigoona in fursado shaqo ay helaan. in lacag la siiyo lagu dhaha thank you wadadaashay we're proud of you. in scholarships loo bixiyo oo maxay tahay la siiyo. all of these things waxyaabaan soo kordhinay to encourage the students reward inuu qofkii maxay tahay helayo. waan ku farxayaa naftiisa markuu muddo kooga shaygii wado uu arko natiijada iyo mira dhalka uu ka gaadhay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. subxaanallahi alcadiim. subxaanallahi wa bixamdih. allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum. waan idin sugayaa dhammaantiin.
thank you very much casharkeena gaabana waxaan rajaynaya wax aad iyo aad iyo aad u fara badan inaad biidnillah ka faa'iideen ifaad xaggan soo gaadhay ha ilaabin subscribe inshallah and muuqaalo fara badan oo xiisa leh ayaan this YouTube channel inshallah soo dhigi doonaa. Thank you very much. Astaudirukumullah. Fi amanillah.